kan waxyaabo badan ayaa ka dhacay dalka Itoobiya oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin mucaaradka oo xabsiga laga sii daayay iyo ballanqaad loo sameeyay boqolaal qof oo kale oo arrimaha qowmiyadaha u ololeeya in la sii daynayo. Isbahaysiga dalka xukuumaha waxay kaloo ballan qaadeen wada hadallo si la isugu dayo in xal loo helo dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkaas ka taagan. Dhacdooyinkan oo dhan waxay marqaati u noqdeen isbeddel awoodda isbahaysiga dalka xukuumadda dhexdiisa ah EPRDF oo ku dhammaaday iscasilaadda ra'iisul wasaarihii Itoobiya Haile Mariam Desalegn maalintii shalay. Maanta waxaa la sheegay wada hadallo xaalad degdeg ah oo dalka ka dhacday, taas oo ugu dambeystii ay ka soo baxeen go'aano ay ka mid tahay in dalka xukun degdeg ah lagu soo rogo. saas awgeed maxaa ka socda isbahaysiga Itoobiya xukuumadda dhexdiisa? Wasiirka isgaarsiinta Negeri Lenko ayaa la hadlay Audrey Brown oo ka tirsan qaybta Focus on Africa ee BBC-da. It's obvious that in the past 2 years there has been different concerns. Waxaa iska cad in labadii sano ee la soo dhaafay ay jireen walaacyo. Shacabka waxay muujiyeen waxyaabo kala duwan. dawladda iyo xisbiga talada haya waxay ka jawaabayaan dalabka dadweynaha, waxaana jiro caqabado badan. Ra'iisul wasaaraha wuxuu go'aansaday inuu qayb ka noqdo xalka, isagoo shacabka dhageysanaya si loo xalliyo arrimaha aan aragnay. We have been witnessing. Dhinaca kale, wariyahayagu waxay la hadashay Mulatu Gameshu oo ah ku-xigeenka xogeyaha kooxda Oromo Federalist Congress. waxa uu sheegay in wadahadallada ay dawladdu soo jeedisay aanay dhab ahayn. Isbahaysiga EPRDF-na ay isu diyaarinayaan inay xukunka dalka sii haystaan 26 sannadood oo kale. It's really a shame to say that the dialogue is going on. Really, dialogue is between the forums, the EPRDF formed, which are loyal to the party and the government. run ahaantii tani waxay la mid tahay isla wixii la oran jiray wada hadal ayaa socda. hase ahaatee runtu waa in waxa wada hadlaya ay yihiin EPRDF-ta dhexdeeda oo dacad u ah xisbiga iyo dawladda. dadkaas ayaa isu tagay oo ay la tahay in dadka Itoobiya uusan wax garanayn oo ay dabaalayeen, laakiinse wax wada hadal oo dhab oo socda ma jiraan. sidaas awgeed ma aaminsani in wada xaajoodkan ama wada hadalladan ay yihiin kuwa shaqeynaya ama faa'iido u yeelanaya xaaladda Itoobiya sida iminka ay tahay. And it's not useful for Ethiopian situation at this junction. waa tahay sidaas aad maqlayseen golaha wasiirada ee dalka Itoobiya kulan uu maanta yeeshay oo degdeg ah waxa ay ku dhawaaqeen arrimo ay ka mid yihiin xukun degdeg ah oo dalka lagu maamuli doono. xaaladan degdeg ah waxaa la sheegay in inteeda badan loola jeedo sidii loo difaaci lahaa ama loo ilaalin lahaa dastuurka dalka iyo xuquuqda muwaadiniinta reer Itoobiya. rabshado iyo qarbudaad hantida iyo nolosha dadka loo geysanayay oo dhawaanahan ka dhacaysay qaybo badan oo dalkaasi ah ayaa la sheegay inay khatar ku noqotay dastuurka. golaha wasiiraduna ay u arkeen inay lagama maarmaan tahay in la soo rogo tallaabooyin xukun degdeg ah oo dalka lagu maamulayo. waa tahay intaas haddaan uga baxo arrinta wararka Itoobiya. haddii wax ka soo kordhaan dabcan inta aan hawada ku jirno adinka ugu hormaqli doonta.